Aabba Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan xeryaha qaxootiga Dadaab gaar ahaan xerada qaxootiga Dhagaxley kaasoo ii sheegay in cunugiisa lagu qiyaaso 19 jir ah uu ka fakaday laguna sheegay inuu joogo dalka Liibiya. Ugu dambeyntii waxa uu ka war helay in cunugiisa uu gacanta ugu jiro magafe. Aabbahani ayaa sheegay inuusan awoodin cunugiisa lacagta lagu sheegtay inuu bixiyo, waxaana uu ka codsaday muslimiinta iyo hay'adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga iyo dhammaan caalamka inay soo caawiyaan. waxaana aabahani lagu xukumay inuu keeno lacag qiyaastii dhan $8,000 taasoo uu sheegay inuusan awoodin. Xaale ah oo degan kaamka Dhagaxley H4 booska koowaad degan oo Uuriyaan oo indhool ah waxaa iga fakaday Sakariya Cabdi Faarax Cali wuxuu fakaday sanadka kowdiisa laba beri ka horreeyay wuxuuna ka soo hadlay beesha Liibiya wuxuu yiri waxaan rabaa lacag $8,000 in laga bixiyo Abu Bakar anagana indhool baan nahay lacagta iyada ma heli kara bini'aadankana wuxuu leeyahay kaliya la gadanayo luga la garanaa haddee nin wax dhalay dhibkiis baad garanaysaa waxba aan haynin haddee adduunweynaha iyo inta iyo ninkii wax garanaya ama muslim ilaahay ah in la kaalmeeyo oo ninkaa liisoo deemaa 93 guu dhashay wuxuu ku dhashay Ifo marka dabadeedna aniga reebadi iska oo dib iskaga noqday haddana waa soo noqday hadda wuxuu ahaa secondary form 2 sanadkan form 3 wahala annagaas nala joogaa waxaan nahay magafihii la sheegay Liibiya joogaa la hadal aabbaha baa la yidhi ama hooyada habarta hooyadiisu la soo hadlay habarta ooynaysaa ii timid anna waa ila hadlay waxaa la yidhi hadda wuu xanuunsan yahay lacag $100 u soo dirsada xamarna ku shuba lacagta iyada lacagta $100 maalinka meelaha ka raadinay xamaran ku shubay naag xamdi Axmed la yidhaha oo xamar joogtaan ku shubnay lacagta dabadeedna hal beri kolkaan joognaa la yidhi haddana la soo hadashay la yidhi soo shuba lacag $8,000 dee asagoo la garaacayo oynahayna waa maqalnay nimankani waxay yidhahaan madka nalaha ani ila hadla kolley wuxuu ahaa nin yidhi karaanigoodan ahay nimanka turjubaanan u ah af Soomaali inuu ku hadla waka